Assalaamu calaykum walaalayaal kusoo dhawaada hooyo and me channel. Waxaan idinka codsanaynaa subscribe, share, like, comment. Bismillaahi raxmaani raxiim. Wadankii waan kasoo tagay anigoo hooyo keligeed ah oo cunug yaroo sanadii 8 biloodna wato. Waxaan imaanay Ingiriiska. Meesha waxaa noogu bilaabatay cidlo iyo cabsi. Cidlo umaan baran, familygeygan ku dhex jiray. cabsidana waxaa ii keeni jiray cunug yaroo waxaan wata isdabari karin, luuqada garanaynin, albaabkii iska furi karin haddii khatar dhacdo. Taasna alla qof raxiim ayaan bari jirnay, alla baana xafiday, wax dhibaato lamaana kulmin. Ingiriiska durbadii waan la qabsaday because systemkaygu ma adkeen maadaama luuqadii aan wadankayga kusoo bartay. Hooyo ayaan wax yar ku yara soconayaa. Hooyo alla qof raxiim ayaa xaq badan na siiyey. Xaqaas waxaana loo siiyeen xaaladaha aan mareyno, walacii, uurkii, dhalitaankii, koriskii. Marka maxaa laga rabaa isku kalsoono, alla qafuur raxiimna tala saaro. Ilmahaaga daryeel sii oo dayax ka ilaali. Nadaafadooda ilaali, caloosha u buuxi. Hooyo waxaan ahay 6 ku korsato qurbo, alxamdulillah rabbil caalamiin, wax dhibaato kale maan kulmin. Meelaha la iska soo galo waxaa weeyaan iskoolaadka. Ilmihii haddii dayax ka muuqdo, madluun isagoo iskuulka aado, nadaafad daro ka muuqdato way kusoo dabagelayaan. Dhakhtarkii sidaas ilmihii haddii dhicitaankooda bato misana dhowr jeer wax khatar ah ugu celisay, dhakhtarka iyagana way kusoo dabagelayaan. Dentiska saas ilmihii haddii ilkiisa dayacaad ku arkaan iyagana way kusoo faragelinayaan. Marka maxaana laga rabaa inaan feejigsanaano. Hooyooyinka Soomaali maasha Allah, meel kasta aan joogno waan dadaal badan nahay, Ilaahay naga abaal mariyo. Hooyana Ilaahay jazaageeda jannaha ka dhigo. Marka dadaalkeeda aan la imaano insha Allah biidhnillah kariim. Wax yar waxaan ku yara soconayaa ilmaha 5 sano ka yar. Hooyo yar markaa tahay waxaa isdhiisa waqtigaas ugu dhib badan, balse markaa hooyo weyn noqoto ayaad ogaanaysaa waa waqtigii ugu fiican yahaan maasha Allah. Adigaa nadiifinaysaa, u qabeynaysaa, u cadeynaysaa, u labisiisaa, cuntada hadaa siisanaysaa, haddii kaa diidaan afka ugu guraysaa, hadaa gacanta haysaa oo wixii khatar u sheegaysaa. Marka hooyo haddaan maxaana laga rabaa waqtigaas ilmaha waqti badan aan gelino, kuma soo mari doono waqtigaas oo kale. Ilmihii wanaag u sheeg, adaab bar, tarbiyey, diiniya iyo maadiyaba wax u bar, buugaag u aqri, u sheekay. Wax alla waxaa fahansiin kartid markaas fahansii. Wixii wanaagii aad yaraanta ku bartana weligeed way la soconaysaa. Wixii fiicnaa aad barta ay ilmihii iskoolka la aadayaan, marka iskoolkii xumaan lagama soo bari karo. Marka hooyo haddaan nahay waqtigaas ilmaha waqti badan aan gelino. Waqtigaas ilmaha waxaan ku madadaalinaa toys. Toyska uu fiican yahay laakiin ilmaha jadwal u samee. Waqti uu ciyaaro, waqti uu nasto, nap yar helo, because nasiinada ilmaha aad ay u korisaa, maskaxdan u dejisaa. Waqti aad sheekaysataan, waqti aabuu u aqrisid diiniya iyo maadiyaba aad sheekooyinka uga sheekaysido. Yacni cunugii hal page markaa u aqrisid maxaa ka fahantay dheh, la sheekayso. Waqti xisaab bartid, xisaab weyn markaa uma baahno. Ana waxaan sameyn jiray furarka caanaha aruuri jiray. Waxaan dhihi jiray isku dardar, because 10 shay isku dar. Xisaabta waxaa waay inuu number ahaan 10 u xafido ma fiicno, waa inuu 10 shay iyo 10 noqonaan u fahmo weeyaan. In 10 haddii 5 laga jaro 5 usoo harayso inuu xisaab ahaan u fahmo waay. Xisaabtaay basigeedaan. Xisaabtaas hadaa ilmaha yaraanta ku bartid weligeed way anficaysaa. Iskuul markuu gaarana meeshuu kasii wadayaa. Yacni xisaabtaas way si usii adkaanaysa u fahmaa haddii hoosta laga soo dhis ilmaha marka ugu horeysa. Tarbiyey, ducooyinka bar. Yacni jadwal ha yeesho, jadwal fiican samaysta, because ilmaha waqtigaas hadaa wax badan gelisid hadhow markuu iskoolka bilaabo isagoo la qabsado timetable loo cunug markii la fariisanayo, markii la dhakaala waxaan akhrinayna dhageysana, yacni uu la soconaya dadkiina uu la qabsanaya hadhow markii uu bilaabo iskoolka systemkii. Intaasna waa iga waano. Hooyo hadaa tahay adiga marka hore isku daryeel, cunto isku dheelitiran cun, fruits, vegetables, fitamiinadaada la soco, vitamin D-gaaga, calcium-kaaga. Habeenkii waqti fiican seexo, ilmahaagana bar in waqti fiican la seexdo, nasiina u baahan tihiin. Hooyo haddaan nahay ducada aan badsano,
sujuudda aan ilmahanaga ugu duceyno inuu ilaahay nala xafido insha allah biidnillahi kariim.